السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadanaynaa oobingen oo ah layliyo 14 layli waa tahay saan uga shaqeynayna waa isla arkaynaa markay bismillaah. su-aasha koowaad waxa weeye ein Mädchen gabadhu dash ma waxay qaadanaysaa macnaha ein Mädchen gabadhu biyo cabaysaa weeye jumladu marka ma taqinkan bay qaadataa mise taqint bay qaadataa labadan kay qaadato baad soo qaadanaysaa halkaas dhexda aad ku qoraysaa ma taqinkan bay qaadataa mise taqint bay qaadataa. su-aasha labaad ein dash und ein Mädchen waa gabar eintani ma maartay ma yoonga bay qaadataa mise fakhaw bay qaadataa labadaas kay qaadato ereyga naxwaha ah ee ein yani labadoodu waxa jira labo maxaa la yiraahdaa loo isticmaalo erayadan magacyada oo ah ein iyo eine. marka labadan inaad kala fahantay mucasharadii aynu soo qaadanay aad ku fahantay iyo inaad ku fahmin baan layligan loogu soo daray. marka ein ma waxay qaadataa ein fakhaw bay qaadataa mise ein yonge bay qaadataa kay qaadato labadan baa halka ku qoraysaa. lambar 3 und fasirkeeda af Soomaali ahaan ma aniga miya mise waa iyo labadaas kay magacu yaal kay tahay baa waxaad ku qoraysaa halkaas ku qoraysaa haddii iyo tahay halka ku qor haddii aniga tahay halka ku qor fasirkeeda. ein man fasirkeedu waa labadan mid ama waa nin ama waa naag labadan kay tahay baad mid ka soo qaadanaysaa kay tahay baa soo qaadanaysaa halkaas ku qoraysaa dhexda. faasa fasirkiisa ma rootiba mise waa biyo kay tahay halka ku qor. isagu ist dash ma ein bay qaadataa kind marka kindkan ma ein bay qaadataa ein kind bay noqotaa mise eine kind bay noqotaa labadan kay tahay halka ku qor du fasirkeedu ma iyada miya mise waa adiga kay tahay halka ku qor. boqod oo ah rooti ma biyo miya fasirkeedu mise waa rooti kay tahay boqod biyo miya boqod biyo mise boqod rooti kay tahay halka ku qor. dash ist boqod waa rooti marka boqodkani ma buu qaataa mise buu qaataa ma waxaan dhahaynaa ist isagu ist boqod waa rooti mise waxaan dhahaynaa isagu ist boqod waa rooti waa tahay. dash lambar 10 dash bin ein kind bin ahay ama ay ama tahay adigu ein kind adaa garanaya waa ku bedelaya fasirka haddaan doono tii kala duwan fahmaysaa sooma bin ein kind caruur marka ma waxay qaadataa ish mise waxay qaadataa du maan dhahaynaa du bin ein kind yaa miyay noqonaysaa mise ish bin ein kind labadaas kay noqoto geli. dash bist ein kind ma ish bay qaadataa mise du yani caruur yani labadan waa yani midna waxa weeye anigu waxaan ahay maxaa la yiraahdaa ilmo midna waxa weeye adigu waxaa tahay ilmo marka ma ish baa kan galaysa mise du baa galaysa sidoo kale kan ma ish baa galaysa mise du baa galaysa waxay ku kala duwan yihiin dash bin ein kind kana dash bist ein kind waa tahay waynu soo qaadanay. lambar 12 dash Mädchen dash fakhaw waa tahay. okay labadan waxay kala leeyihiin eine iyo ein Mädchen ma eine Mädchen ba fakhawna ma naarta ma ein fakhaw ba mise Mädchen waa ein Mädchen fakhawna waa eine fakhaw labadaas kay tahay halkan ku kala buuxi labadaas dhinac ku kala buuxi. lambarka ugu dambeeya lambar 13 dash Mädchen taqint gabadhu biyo cabaysaa ma ein Mädchen ba ein miya halka galaysa mise eine galaysa kay tahay halka ku qor. midda ugu dambaysa sie ist iyadu ein fakhaw miya mise waa eine fakhaw kay tahay labadaas halka geli yani labadaas kay tahay halka geli waa tahay. iska soo shaqee maxaa la yiraahdaa markaad soo dhamaysid layliga waa ka soo shaqaysid haynoo ahaato insha Allah.